markaan waxaan u galaynaa qaybta chartska daatada hadhow marka aad dashboard ina ku muujisid 90% pivot table-ada aan hadda abuurnay analysis baan ku sameynayni maahane dashboard-keena kama muuqan doonaan dashboard-keena waxa ka muuqan doona visualizations waxa charts ka muuqan doona chartskaas waxa aad muhiim u ah oo inta badan la isticmaalaa oo muhiim ah bar chart, pie chart, column chart iyo trends marka inta badan isticmaalena qeybaha kala duwan qaybta theory-gaada waxaan ku arkay doontaan chart walba iyo qaybta loo isticmaalay iyo meesha loo isticmaalay iyo halka uu ku haboon yahay okay marka aan dib ugu noqono kuwii hore pivot table-ada soo abuurnay charts visualizations aan ka sameeyno graph waana ogtihiin sawir mar walba oo ka micno badan yahay lambar meel ku qoran pivot by region marka aan tagno qaybtan hadeertaan aan xarabna anaga regionskan inaan ku muujino graph marka waxa ku dhufataa pivot table-ka dhexdiisa marka aad ku dhufatid waxa arki doontaa analyze iyo design tools analyze-ka tag kadib waxa doorataa pivot chart marka aad ku dhufatid asaga recommendations ku siinaya hadii aad korka ugu dhufatid midka uu ku haboon yahay datadaada aad fiirin kartaa preview ayadoo ah laakiin ani by default waa ogahay waxa aan rabo datadeeda inay ku muuqato waa bar marka bar haday tahay bar chart waa doortay okay aan dhahay okay marka aan nahay datadan ma qurxoona ina waxa la rabaa madaxa ka shaqeysiisid oo si fiican u fikirtid oo waxa si datadaada qurxoon tahay oo analysis aad ku sameyn kartid inaad soo saartid marka creativity-gaaga soo baxaysana waa okay chartiga marba dhinaca aragtida u jiidan kartaa you can resize it dhinaca qabata aad u wareejin kartaa meesha rabtaa geyn kartaa waxyaalo badan horta ka qabanayna laakiin wax ugu horeeyo ee soo baxay waxa waa labada mid inaan kala doorano waayo laba total values meeshan ku jira mana ku qurxoona chartiga marka family-ga kala aan banaanka u bixino banaanka marka u bixino micnaheedu waa delete gareyna ma ahan laakiin waxa waaye waxaan ka bixina pivot table-keena calaamadaas oo wuxuu yeelanayaa oo x ka marka banaanka u soo bixino hada chartigeena wuxuu eeg yahay midkii hore ka yara qurxoon asagana shaqo badan u baahan okay plus sign-kaas chart elements ka dhan ku jira marka imaatid access hada uu select gareysan bal hada checkbox ka qaada maxaa isbedelay waxa baxay magacii category-yada dhan waa muhiim category-yada marka x ka checkbox kaaga saarada check marka ku soo celisid access titles maxaa baahantahay ma u baahanid access jar title waa meeshan uu total ku qoran yahay magaca uu bedeli doona waxaan u baahanahay inaad data soo galino marka data inaan soo galino aan u baahanahay datadan lambaradan inay soo muuqdaan aan rabno waa ina checkbox kan oo data labels kan checkbox ka saarno marka calaamadaas tig gareynay kadib hoos u imo grid lines kan u baahanahay calaamadahan maya grid lines kan bixi legend ma u baahanahay maya legend waxa uga baahanahay waaba asaga dhanaba hal xaba ah wuxuu leeyahay hal color uu leeyahay oo blue ah inuu district inuu by region yahay qof walba u fahmay marka bixi waxa ku soo haray batanada meesha batanadan mid kamid ah korkiisa tag and right click dheh kadib waxa dhahdaa hide all field on the chart okay hadaa si u fiirisid datadan way kala gedisan tahay waxa la rabay kan ugu hooseeyo oo banaadir inuu ugu koreeyo waayo anaga asagana ugu koreeyo excel noocan inta badan uu kugu soo bixi doonaa datadaad ogtahay inay sort gareysan tahay laakiin marka chart sameeyay asaga uu cagsiga u sort gareynaya marka laba option waa noo furan yihiin inaan sortigan hadana cagsi ka dhigno smallest to the largest aan ka dhigno ama in aan kor imaano meeshan categorieskan right click marka aad dhahdid aad format access marka aad dhahdid wuxuu ku keenayaa format access oo qaybtan uu keenay marka hoos u deg waxa arkaysaa meeshan categories in reverse order category-yadan sidii hadda yihiin kala gedi banaadir ugu hooseys banaadir ugu kormaray
haddaan dhahno waa kaas it's easy kadibna iska xir. hadda kaas waan xalinay. measurementyadan marna u baahnaan kartaa marna ma u baahnid, laakiin anaga waa delete gareynaynaa ma u baahnin. dooro delete dheh. okay, si haddaa u fiirisid daatadan daata diyaarsan waay. resizing waa ku samayn kartaa, dhinaca aragtida qaban kartaa. title-kan magac u bixino, maxaan dhihi karnaa maxaan dhahnaa individual by region. okay, soma dhihi karno title adiga waxa u bixisaa la fahmi karo. anagoo kale aan dhahno id is by region. adig just title u bixi. can access can help jar title-kii dib u soo celi. meeshaan waxaan dhahaynaa id is by region. okay, hadda kan saanaan u sameynay waa fiican yahay. okay na waay. maxaa kale u baahnaa lahayn, jartigan wuxuu leeyahay qayb format tab cusub u keenay. formatkan design shape styleska bedeli kartaa haddaa rabtid. kasoo qaad anaga inaan isticmaali doono buluug waxaan uga dhigaynaa kaas. marka kan aan ka soconno aan u gudubno districtiga oo kale. asagana districtigan maxaan kusoo bandhigi karnaa, jartin waxay kusoo bandhigi karnaa. districtiga dooro kadib analyze tag kadib pivot. pivotka marka aad tagtid by default wuxuu soo qabtay kan oo la dhaho column-ka laakiin si haddaa u fiirisid ma ku qurxoona. inta badan mid ay dadka aad u jecel yihiin aa jira, asaga aan doorano by chart. by chart marka aad dooratid bal fiiri daatadaada say noqonayso. okay, wuu ila qurxoon yahay, laakiin marka aad rabtid inaad by chart daatadaada aad ku muujisid waxaa fiican in categoriyadan ayna ka badneen 4 ilaa 5. hadda anaga meeqa waay 1 2 3 4 5 6 7 category way badan tahay. okay, so 7 iyo wixii ka badan inta badan bar chart lagu muujiyaa, laakiin mar walba inaad dib usoo noqonaa bedeli karnaa. kan aan clean gareyna aan dhahna right click hide all fields. meeshaan waxaa dhahdaa data c datada ma gudahan usoo geliyaa. okay, haddaa rabtid meeshaan ku dhufo arrowgaas yariska sii baxaya. waxaa dhahdaa outside in banaanku geynaya, inside in guduhu geynaya. best fit meesha aad rabtid ugu wanaagsan geey, kaasaa inta badan iska dooran kartaa. okay, hadda kan saan u diyaarsan yahay. kan maxaa u bixinaa marka top 7 districts. okay, kan asagana visualization kalaan u sameynay waan ka baxnay. pivot by category asagana pivot by category asaga aan doorano analyze aan dhahno pivot chart. jartiga ku qurxoon taasi u fiirisid hadda column uu soo qabanaya kan already. wuxuu isbarbar dhigayaa sum of families iyo sum of individuals oo by category waxaa dooran karnaa laftirkiisa column-ka si aan kala gadino visualization-nada isticmaaleyno. kan marka ugu horeysa koodii hore isaga dooro kadibna delete dheh. kanna right click korkiisa ku dheh hide all fields dheh. kanna inaa korkiisa ku dhufatid grid lines kan delete qabo oo computerkaaga keyboardkiisa plus sign-kan mar kale waxaan u baahnaanaynaa horta data labels. mar walba u baahan tahay in daatadaada
lambaradooda ay kor ka soo baxaan. haddii aad rabtid data table oo hoos inuu lambaradan ka soo muuqdaan, inta badan data table waxaa la isticmaalaa marka aad rabtid chartigan inaad koobiyeysid oo report aad qortay ama PowerPoint presentation aad geysid, waayo markaas chartigii iyo datadii oo isla socota waaye. Okay, kiin hadda ma u baahnin anaga. Okay, legendiyadan u baahana haa u baahana, laakiin meesha hoose gey legendigaas qaybtaas madowga ah ku dhufo, kadib waxaa dhahdaa hoos gey bottomka geedhe. Okay, magacyadan aan bedelno, meeshaan aan dhahno total enter, total individuals enter. By default isbedelaya way isku xiran yihiin kan. hadda filter gareysid xitaa uu isbedelaya chartigan u fiirso. hadda kan kaliya hadda aan doorano chartigan kaas kaliya kusoo haraa. Okay, way isku xiran yihiin. datadan hadhow hadda meeshan datadeena update gareyno, waxa kaliya u baahnaan doono pivot chartyadan pivot tablada in aan refresh all dhahno, kadibna chartskan automatically refresh noqon doonaan. Okay, datadan aan sort gareyno largest to smallest. Okay, hadda waxaa ugu horeeya qaybtan urbanka ah, waxaanan u sort gareynay total individuals. meeshaan sort gareyna hadda xitaa kan aan dhahno sort largest to smallest asagana weli. Okay, good. kan chartigan hadda asagana aan doorano, aan plus signkan chart title aan u bixino. maxaa u baahan tahay inaad dhahid kan magacaasi. Okay, Hanana IDPs by category. magaca la fahmi karo u bixi oo micnaha ka tarjumaya tablekaas ama chartigaas ku qoran. Okay, mar walbana ha hilmaamin datadaada inaad save gareyso. control save dhex mataran, otherwise Excel marka qaar uu iska crash garoobaa adoo shaqo fiican meel fiican ku mareyso kaa kala istaagi karaan. Okay, maxaa noo haray settlementiga imo asagana settlementii familieskan iska bixin, asagana ma u baahnaan doono. hadaayatis familyga waxaan u bixinay inaan banaanka usoo jiidna, laakiin markaan aan ku dhufano karkiisa remove field dheh. Okay, analyze pivot chart. kan markaan aan doorano column chart data dooranay, bar chart data dooranay, laakiin waxaa ku fiican column chart kan geeyna mar kale kii hadda aan soo sameyno kale. kan ka bixi grid lines kan waxaan dhan hore usoo baranay. markaan waa dadajinaya right click dheh hide, kan asagana delete dheh, resize dheh, soo yaree, aad u sii yaree haddaa rabtid. good. meeshaan plus signkan mar walba imo waa meesha kaliya wax kala bedeleysid. Okay, waxaa dhahdaa data labels aan u baahanahay, legend ma u baahni, waayo hal color wax hadduu yahay legend ma u baahni, laakiin hadday category kala duwan ay yihiin markaasaa legend u baahnaa lahayd. good. kanna waa saas u baxna, magacaan siino. maxaan dhihi karnaa settlement type by individuals. Okay, titlekan iska yara dheeraaday laakiin no problem. kuwii hore waxaan kasoo tagnay inaan calaamada buluugooda gelino, asaga korkiisa dooro. format markaa taagan tahay styleka midkaa rabtid dooro. kii hore aan dib ugu noqono, korka uga dhufo, stylekan le dooro.
meeshan styles badan ku jira laakiin anaga kana dooranayna si kulli waxayna isku wada shabahan isku mid ay u noqdaan kan imo ku dhufo format tag style kan dooro style kan wuxuu sameynayaa xariiqa banaanka wuxuu ka dhigayaa blue oo light ah hadhowna dashboard keena inuu wuxuu noqon doonaa blue light ah oo wada noqda asagana si uga tarjumo ama company markaas isticmaalaysa anaga datadeena waa iska testing datadan dhanna wax ka jira ma lahan inta badan 90% copy pasting un baa anaga ku sameeyay ma ahan data sax ah asliin data sax ah waay haday kula saxsanaato okay settlementiga waa sameynay kana oo dhiman marka aan ka sii horumarsiina buyerka buyer individuals kaliya meeshan ku haysanaa buyerka families na noqon family korka geey okay waxaan u baahanahay markaan in aan kan trend aan isticmaalno trend waa lineska waxay mar walba muujiyaan over time wixii ama isbedbedelka sanadlaha ah ama bilaha ah waxna loo isticmaalaa okay analyze ka tag pivot chart tag markaan meeshan line marka aragtid noocyo kala duwan uu leeyahay waxaan dooranaynaa line with markers markaan aan okay leena okay kan inta soo yarjiid okay and datadan sort gareyno sort marka dhahayno individualka waxa sort gareysaa largest okay laakiin mar walba waxa fiican in sort gareyno yearka okay inta imo yearka sort gareeyo z 12 13 14 15 16 17 okay kadibna shaqadii cleaninga aan chartiga ku sameynayna kan korkiisa ku dhufo delete keyboardkaaga taabo kan right click dheh hide all fields dheh kan dooro marka doorata kadib oo select dhahayna delete computerkaaga taabo kuwan waxaan rabnaa inay qaybta hoose tagaan legendigan imo meeshaas boxkaas ku dhufo bottom dooro asagana hadda hoose inoo yaalaan wuxuuna leeyahay some of families laakiin anaga magacaana bedelno kuwii hore maxay noo ahaayeen total families kana total individuals magaca legendskan uu isbedelayaa total families iyo total individuals marka si uu cadeeyo meesha ay wax kala marayaan kay family ah bluega ah kay individual ah jala marka plus anka imo waxaa siisaa datada sanadka 2012 total families waxay ahaayeen 83,000 total individuals kana waxay ahaayeen 385,792 marka qofka sawir guud buu hore ka qaadan karaa 5 sano la soo dhaafay sida ay datadan trendigeeda u kala ahaa sanadkii ugu badneed individuals ugu badan ee imaadeen waxay ahayd sanadkii 2012 385,000 sanadkii kale ku xigay waxay ahayd 2015 sanadku ugu hooseeyay waxay kula tahay datadan 2000 waxa waaye 17 ha 137,000 sanadku ugu hooseeyay okay good picture fiican oo qofka ka qaadan kara oo datadan ku tarjumi kara haduu maamulanayahay oo ugu go'aan gaari karo meeshan imo maxaan ku qoraynaa yearly trends by IDB yearly trends IDB's yearly trends okay good hadda kanna waa ka baxnay iska resize garay meeshiisana iska yaalo styleka u samee asagana blue u dooro good save garay markaan maxaa nooga dhiman datadan almost complete way data analysis keena hadda inta aan sameynay intaas aan sameynay aan waxaan rabnaa inaan kusoo muujino dashboard
marka waa qaybteena noogu xigta insha Allah ay noqonaysaa inaan markaan abuurno dashboard